xubinta bara haddii aan ku hormaro caawa waxaanu eegi doonaa isla markaana aanu ku qaada dhigi doonaa allaha u naxariistay maxamed cabdulle xalane waxa uu ka mid ahaa haliyadii Soomaaliyeed ee taariikhda ku lahaa dadka Soomaaliya waxa uu ahaa taariikh weyn ku leh wadanka si gaar ah waxa loogu xasuustaa waa shakhsigii ama muwaadinkii Soomaaliyeed ee isagoo calankeenu dhulka inuu ku dhaco ama uu u gacan galo Etoobiyaanka ka ilaalinaya naftiisa ku waayay sanadkii 1964 ayuu ciidanka Soomaaliya ka tirsanaa ciidan Soomaaliya oo aan badnayn oo ku sugnaa Togo Jaale ayaa xiradoodii waxa ku soo weeray ciidanka awood badan oo Itoobiya ah ciidankii Soomaaliya waa laga awood batay oo waa laga cayriyay xiradii iyadoo ciidankii ay sii cararayaan ayuu arkay calankii xirada ka dhex babanayo oo laga cararay iyo ciidanka Itoobiyaanka ku soo dhow uu soo tagay damiirkiisu uu siin waayay inuu calanka meesha uga tago uu soo laabtay isagoo meeshii saaran calankii soo furaya ay ciidanka Itoobiya soo gaareen xabad bay kala daaleen meelo badan bay xabadii kaga dhacday isagoo dhiigi ka daadanaya ayuu calankiina dhulka ku dhaca ka ilaaliyay uu la orday wuxuu la tagay ciidankii Soomaaliya buu la tagay ugu dambeynna dhaawaca dartiis ayuu geeriyooday xalane allaha u naxariistay waxa uu ahaa haliyay Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed xilligaasi ka baxay isla markaana ay in badan xasuustaan dadka Soomaaliyeed maxamed faarax ciise gaashaan ayaa alaabay noo soo jeediyay xubinta baraha haliyayga waxaana caawaynu ku barayaa maxamed cabdulle xalane daawadayaal dhageystayaal intiina ku taxan barnaamijka tabiyaha gaar ahaan xubintiisa baraha haliyayga ku soo dhawaada barnaamij aynu kaga hadlayno taariikh nololeedkii halgame maxamed cabdulle xalane allah u naxariistay maxamed cabdulle xalane wuxuu 1943 ku dhashay degmada Ceelbuur ee ka tirsan gobolka Galguduud wuxuuna xooga dalka ku biiray bishii Juun 20keedii 1960 ilaaha u naxariistay waxa maxamed cabdulle xasan lagu dilay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1964 dal kasta oo maanta xorriyad haysta waxa hubaala dhageystayaal inay jiraan dad naftooda iyo maalkoodaba u horay suurtagalna ma ahan sunnada dunidana ka mid ma aha in la helo xornimo aan dhiig iyo xinjiro u daadanin sidaas darteed Soomaaliya waxay iyaduna leedahay geesiyaal badan oo naftooda u horay xornimada iyo difaaca dalkooda hooyo waxaana geesiyaashaas ka mid ah maxamed cabdulle xalane oo runtii mudan in meel kasta oo qof Soomaaliya uu joogaba inuu ogaado sharafta iyo karaamadii uu ka tegay halgankiisiina la xuso haddaba si aan wax badan uga ogaano sida uu u dhacay dagaalkii uu ku shahiiday maxamed cabdulle xalane sida la yaab kale iyo geesinimadu ku jirto ee qisadiisu u dhacday waxaa inoo ka sheekaynaya mas-uul goobjoog ka ahaa wakhtigaas oan ku soo qaadan doono qormadeennan ilaah isagana ha u naxariistee waa sarreeye gaas maxamed siyaad barre oo markaas ahaa abbaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlaya taariikhda maxamed cabdulle xalane maxamed siyaad barre wuxuu yidhi aan ka taariikheeyo maxamed cabdulle xalane waxa uu ahaa nin askariya oo amxaaradu ku dishay Togo Jaale wuxuuna ka mid ahaa horin halkaas joogtay waxay ahayd koox ay cadowga soo fadhiyeen waxaa dhacday in kooxdii la laayay 3 qof keliya baa ka haray meeshaas kooxdaasi joogtay oo ay go'doonka ku noqdeen waxay ahayd meeshii calanka Soomaaliyeed uu ka taagnaa maxamed cabdulle xalane markii raggii la baabi'iyey oo ay ogaadeen inaysan meesha hayn karaynin inay colkoodii weynaa ku durkaan ayay goosteen wuxuuna diiday maxamed calankii inuu meesha kaga tago markaas ayuu qaatay calankii oo xariggii soo degsaday si uu ula tago oo uusan gacan cadow ugu dhicin maxamed cabdulle xalane way arkayeen cadowgu markaas bay ku fureen boobeen naftiisii gooyey maxamed isagoo calankii ku duuban oo aan sii daynin ilaa ay naftii tii u dambaysay ka baxday ayuu la soo gurguurtay
naftiisiina waxay kaga baxday markuu calankii ku soo riday godkii labaad. hadalkaas markii naftu ka sii baxaysay kelmaddii uu reebay maxamed oo lama ilaabaanka ahayd oo walba ay deeda ka dambaysa dhaxal ahaan ugu gudbin doonto waxay ahayd cadowgu birlab kama samaysna. maxamed wuxuu ku soo simay colkii si uusan calanku cadowga gacantiisa u gelin. inkastoo naftiisii uu waayey, maxamed ceebtii wuu ka soo hooyey calankiisii. xusuusta uu reebay darteed maanta nin dhintay iyo nin nool waa isaga keliya nin lagu xusuustaa bilo dahaba maxamed cabdulle xalane. tan iyo maanta dalkeenna waa ninkaa keliya ninka bilada dahabkaha la siiyey. waxaa kaloo lagu xusuustaa xidiglenimo uu ku qaatay dagaal geesinimo ah. tan saddexaad oo lagu xusuustaa waxaa lagu magacaabay xarunta tababarka ciidanka xoogga dalka, waa xarunta xalane. waxaa kale oo uu yidhi sareeyegaas maxamed siyaad barre isaga oo sii wata hadalkiisii, in laydinka taariikheeyey mooyee xaaladeenna iyo tan cadowga sida ay kala ahaayeen xagga tirada, hubka iyo raashinka. isagoo hadalkii sii wata ayaa waxa uu yidhi siyaad barre, cadowga gumaysiga xoog badan ayaa daba taagnaa, waxayna rabeen soomaaliya in la baabi'iyana taladoodu ahayd. kuweennii godkii ay galeen say ugu jireen baa dagaalkii ku dhammaaday. saddex biloodna korkooda ku go'day. anigu waxaan shaahid ka ahay haddaanahay maxamed siyaad barre inaan nimankii dhallinyarada ahaa oo dharkii iyo dhidid dhowrkiiba ku dhammaadeen ugu tegey godkii ay ku jireen. cunnadoodiina bariis garcadda ah bay ahayd, daawadana daciif baan ka ahayn. haddana uma suurto gelin cadowga inuu dalka cagta soo dhigo. waa ogtihiin, waadna maqasheen baan u malaynayaa kuwa dhaawaca oo xabadi ku taal inay inta qoryahoodii qaateen ka baxeen isbitaalka oo ay yidhaahdeen kolleyba haddaan dhimanayno intaan sariirta ku dhiman lahayn aan goobta ku dhimanno, oo dagaal ku galeen sidaasna ku boogsadeen ama caafimaadeen, waana joogaan qaarkood haddeer. hadda way wada dhinteen, siyaad iyo ninku ka sheekaynayaa iyo raggaas qaarkood ee allahu naxariistee. markii aan ugu tegey godadka oo aan idhi qaarkood, waryaa waa adiga qaawanay, sidee ugu adkaysanaysaa qorraxda iyo dhaxanta? waxay iigu jawaabeen, waxaana ilowsiiyey dhaxanta iyo qorraxda sharaftayada iyo waddankayaga iyo iimaankayaga. ma xusuusanayno, adaa mooday inaan xusuusanayne. ha ka baqin, meeshayada laga soo geli maayo iyadoon meydkayaga laga tallaabsan. markhaanti furkaas waa maxamed siyaad barre. hadalkaas qofkii uu dhegihiisa ku dhaco qiirada gelinayey ayay ku jawaabeen, waxayna ku caddaynaysaa geesinimada iyo wadaninimada dhabta ah ee ku jirtay halgamayaashii dagaalkaas ku shahiiday. waana sida laga rabo inuu dalkiisa, diintiisa, dadkiisa, naftiisa ugu huro. ilaah ha u naxariisto dhammaantood intii dagaalkaa iyo dagaallo kaloo dalka lagu daafacayayba ku shahiiday. markhaantiga ugu weyn waxa furay abbaanduulihii dagaal geliyey oo ku shaqaynayey, kadibna waddanka soomaaliya madaxweyne uu noqday 21 sano, halgame sareeyegaas maxamed siyaad barre. maxamed cabdulle xalane iyo intii kale oo u shahiiday dalkaba ilaahay jannatu firdowsa ha ka waraabiyo. dhegaystayaal, maanta barnaamijkeennii baro halyeygaaga oo aynu ku soo qaadanay taariikh nololeedkii maxamed cabdulle xalane intaas haynoo joogo. ilaa aynu kulanti dambe oo xiisale ku kulmi doonana iyo halyey kale oo cusub. nabadgelyo.
watay daawadayaal halkaasi aynu kaga soo laabano taariikh nololeedkii halgamaagii Soomaaliyeed Maxamed Cabdulle Xalane oo isagoo calankeena sharaftiisa difaacay u geeriyooday oo naftiisa ku waayay ciyaarihii xubinta ciyaaraha ayaynu eegi doonaa iyo falanqayn ku aadan bal ciyaaraha ugu dambeeya ee dhacaya iyo sidoo kale kuwii dhacay iyo isku aadka dhinaca aan idhaahde Champions League khadroy waa sax toddobaadkan waxaa la ciyaaray kulamadii kala duwanaa ee horyaalada qaaradda Yurub kulamadii ugu dambeeyay horyaalka Premier League waxay ahaayeen xalay kulan dhex maray Brighton iyo kooxda kubadda cagta Crystal Palace hal iyo hal ay ciyaartaasi lagu kala baxay oo xilliga dhimashada waxa goolka barbaraha u keenay kooxda Crystal Palace Wilfred Zaha haddaynu fiirino sidii la isugu aaday Champions League kulamo aad u xiiso badan baa soo baxay waxa isku aaday Manchester City iyo Real Madrid waxa kale isku aaday Atletico Madrid iyo Liverpool waxyaalaha xiisaha leh waxa kamid ah in la yiri ay taageerayaasha Liverpool codsanayaan maadaama sanadkii hore garoonka Atletico Madrid ay ku qaadeen Champions League inay sanadkan leeyihiin war Atletico sanadkaana anaga noo mahliya oo garoonkiina markaan tagaynaa anaga inaan guriga ku ciyaarayna camal naga dhiga waa ciyaar ayaduna aad u xiiso badan waxa kale oo kamid ah kulamada xiisaha badan Barcelona iyo Napoli baa isku aaday kulanka ka xiiso badan wuxuu isku aaday Bayern Munich iyo Chelsea Borussia Dortmund iyo PSG ayaguna kulan aad u xiiso badan aad iyo kulamada isku aadka ka dhacay marka wararka kale ciyaar hadaynu fiirino warar baa soo baxay ilaa xalay iyo sheegaya inta barihi Napoli laga cayriyay Real Madrid hore soo maamulay Carlo Ancelotti loo dhiibayo oo aqbalay shuruudaha in uu noqdo tababaraha kooxda Everton oo dhawaan laga cayriyay kooxda reer Ingiriis wararka kale ciyaaraha waxa kamid ah kulamo badan ayaa soo aadan oo caawma ay hameen dambe la ciyaari doona waxa kulamadaasi kamid ah Liverpool oo aadaysa dalka Qatar kaga qayb galaysa tartanka kooxaha adduunka iyadoo koox kamid ah Liverpoolna ay caawa ciyaarayso tartanka League Cup-ka ciyaaryahanada ay ciyaaray kooxda weynaysa Qatar bay ku maqan tahay kulamadaas way jiraan sidoo kale hameen dambe waxa la sugayaa El Clasico kulanka aad u xiisaha badnaa ee Barcelona iyo Real Madrid kulankaasi warar ku dhacaya soo baxayo in xidigaha badankooda ama xidiga muhiim ah ee Real Madrid ka maqnaan doonaan waxa kamid ah Hazard iyo Marcelo marka barnaamijyada dambe aynu kula wadaagi doonaa daawadayaasheena wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha aad guud ahaan daawadayaal xubintaasi ayaa u dambeysay barnaamijka TVA TV-ga oo idin socodsiinayeen aniga waqti Maxamed Faarax iyo Absa Xasan Faarax dhinaca farsamadana oo ahaa Faysal Mursal inta aanu barnaamijkan waxaan kaga tegaynaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo